madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dalka dib ugu soo laabtay 4 sano kadib ayaa si weyn shacab iyo mas'uuliyiin dowladda ugu soo wada dhaweeyeen magaalada Muqdisho waxaana uu socod nabadeed ku soo maray inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo hoyga uu magaalada ka degay halkaas oo gacan qaad ka soo bilaabay xilli wadada hareerihiisa ay safnaayeen boqolaal dad ah oo isagu taageero u muujinayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee shacabka soo dhaweynaya ayaa mar qura isdhaxgalay iyada oo aanan jirin wax ciidan ah waxaana ka wada muuqday farxad iyo rayn madaxweynihii hore dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isugu jira xildhibaano saraakiil ciidan iyo sidoo kale mas'uuliyiin hore xilal kala duwan oo soo qabtay dalka siyaasiyiin aqoon-yahano waxgarad shacab مسؤولينتي ay wada shaqeyn jireen iyo ciidamo madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa soo dhaweyntiisa waxa ay u dhacday si aan la filan xil dowladdu amar ka soo saartay in aan saxaafadda gudaha u gali karan garoonka diyaaradaha Muqdisho muddo 6 maalmood ah waxaana wadadii uu u mariyay hoygiisa reer tubnaa boqolaal taageerayaashiisa ah oo ruuxaya caleemo qoyan iyo kooxda barbaarta gaashaaman oo halka ku soo bandhig sugaan ay ku cabirayeen dareenkooda ku aadan taageerada Sheekh Shariif Sheekh Axmed مشرح مدحوينه ee doorashada soo socota madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ah Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu dambeyntii afaafka hore ee guriga uu ka degay magaalada Muqdisho kula hadlay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo isugu soo baxay soo dhaweyntiisa iyo marxabeentiisa والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وما تسدين سو دوينتا guddiga qaban qaabada ciidamada amniga bulshada qaybaheeda kala duwan ee u soo baxday soo dhaweynta aad iyo aad u mahadsantihiin farxad weyn ay inta maanta inaan idinla joogo oo dib u soo laabto dhowr sano kadib waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga aad bixiseen qorraxda iyo boorka iyo socodka aad iyo aad ugu mahadsantihiin maadaama waqti badan la taagnaay mar raba inaan idinku dheereeyo warku waa noo dambeeya waa isla joognaa insha Allah marka waa mahadsantihiin aad ilaahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
imaatinka madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa furo u noqonaysa inay dalka dib ugu soo laabtaan dhammaan musharaxiinta u tartamaysa xilal kala duwan ee doorashada fooda ee nagu soo haysa waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay yimaadaan inta ka dhiman. Muuse Maxamuud Shiiso, Soomaalisan, magaalada Muqdisho.